بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. meeshaad imika daawadayaal nagala socotaan waa janalka Wargal Media. qodobada iyo wararkan idin hayno waxaa ka mid ah tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 oo siyaaday boqolaal iyo dheeraad oo cudurka la yaala dalka Soomaaliya. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo daahfuray barnaamij lagu taakulaynayo qoysaska danta yar. qodobka dibadda aan idin hayna daawadayaal yaan ku qaadaa dhigi doona wuxuu noqon doonaa dalka Mareykanka oo la laabantay isbuucii la soo dhaafay geerida iyo soo ridashada cudurka COVID-19, halkaasoo tirada guud ee dadka u dhintay cudurkaas ay gaadhay 34,000. intaas waa qodobadan iyo wararkeena kuwa ugu door karoona daawadayaal. intaan u galin faahfaahinta barnaamijka ka tagayna channelka subscribe saarta videodana like saarta una share garaysa asxaabtaada sharafta leh. haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. waxaa la soo dhigay barta Facebook ee Villa Soomaaliya in madaxweyne Farmaajo uu daahfuray barnaamijka Baxnaano ee lagu taakulaynayo qoysaska dan yarta ah Muqdisho. Abriil 18, 2020 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daahfuray barnaamijka Baxnaano oo taakulayn dhaqaale lagu siinayo qoysaska danyarta ah iyada oo wajigiisa koowaad ay ka faa'iideysanayaan 1.3 milyan oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gudaha dalka. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay xukuumadda dadaalka ay ku bixisay xaqiijinta ballanqaadkii ku aadanaa dib u soo nooleynta adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha iyo kor u qaadista fursadaha shaqo, heerka nololeed iyo dakhliga dalka, isaga oo tilmaamay in daahfurka barnaamijkan uu ku soo aaday xilli cudurka COVID-19 uu saameeyey nolosha iyo ganacsiga dadka Soomaaliyeed. waxay dhaheen waxaa inoo diyaarsan qorshaha horumarinta qaran ee 9aad oo si faahfaahsan u qeexaya qorshaha aan ku wajahno saboolnimada, cunto yarida, annaga oo xoogga saaraynaa kor u qaadidda nolosha dadka u nugul xaaladaha degdega ah sida abaaraha, duufaanada, cudurrada iyo guud ahaan musiibooyinka dabiiciga ah ee ina soo food saaraa. madaxweyne Farmaajo ayaa faray xukuumadda gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ay hogaaminayso barnaamijkan Baxnaano in si daahfuran oo hufnaan iyo cadaalad ay ku fuliso barnaamijkan iyada oo daryeelaysa qoysaskan danyarta ah ilaa ay ka gaarsiinayso heer isku filnaansho nololeed ay iskood u maareyn karaan noloshooda. si wajiyada xiga ee barnaamijka Baxnaano loogu sii baahiyo malaayiin kale oo ka mid ah shacabkeena Soomaaliyeed oo u ooman adeegyada dowladeed. barnaamijka Baxnaano ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku xoojinayso adeegyada dadweynaha ayaa laga hirgelinayaa 21 degmo oo ku yaal dalka iyo deegaanada hoostaga degmooyinkaas iyada oo loo qoondeeyay dadkaas danyarta ah taakulayn dhaqaale oo ah 4 milyan oo dollar bishiiba. sidoo kale barnaamijkan waxaa qayb ka ah taakulayn dhaqaale oo lagu xoojinayo nolosha dadka beeraleyda ah ee dalagoodii uu galaaftay ayaxii ku habsaday qaar ka mid ah deegaanada ay ka soo go'aan dalagyada dalka. dhammaadkii sanadkii tagay ee 2019 dowladdu waxa ay maalgelin dhaqaale u sameynaysaa beeraleyda si kor loogu qaado wax soo saarka dalka. sidoo kale waxaa faahfaahin laga helayaa in tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 oo ku dhaqan dalka Soomaaliya uu siyaaday boqolaal iyo dheeraad oo cudurka la yaalo. wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa 24 saac ee u dambeysay waxaa la baaray 47 qof. waxaa laga helay cudurka COVID-19 36 qof, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee la xaqiijiyay 116 qof.
bukaanada cudurkan maanta laga helay 27 ka mid ah waa lab, 9 kalena waa dhadig. 30 ka mid ah waxay da-doodu u dhaxaysaa 20 ilaa 39 sano. 5 ka mid ah waxay da-doodu u dhaxaysaa 40 ilaa 59 sano. hal qofna waxa uu ka weyn yahay 60 sano. daawadaheena sharafta leh, halkan waa Wargal Media. subscribe saar video, like saar, una share garee asxaabtaada. wadayaal, waxaan joognaa gabagabadii iyo gunaanadka barnaamijkeena. waxaan ku sii xasuusinayaa inaadan ka tagin inaad channelka subscribe saarto, videodana like saarto, kula share gareysa asxaabtaada sharafta leh. sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.